Soomaaliya waa dal hodan ku ah xoolaha iyo dhul daaqsimeedka. Saddexdii sano ee la soo dhaafay wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa waxay qaaday tallaabooyin taariikhi ah oo horseeday isbeddel muuqda oo loo qaaday sidii loo gaari lahaa horumar waara iyo rajo cusub oo ku aadan dhaqaalaha iyo kobaca dalka. Ka wasaarad ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa waxay ka mid tahay wasaaradaha lafdhabarka u ah ummadda Soomaaliyeed oo ay ku tiirsan yihiin hadday joogaan beled iyo hadday baadiyi joogaanba waa wasaaradda kaliya ee ay ku tiirsan yihiin dadkan Soomaaliyeed hadday noqoto dhinaca dhaqaale iyo hadday noqoto dhinaca cunto ama raashin ha ahaato oo loo isticmaalo hadday noqotoba intaba waxaad ogtiin in ay lafdhabar u tahay ummadda Soomaaliyeed. Caafimaadka xoolaha qaybta ugu horeyso aan rabo inaan kor istaago aad iyo aad muhiim u ah guud ahaan dadka Soomaaliyeed noloshooda iyo xoolahaba waxa ku ahaa caafimaadka xoolaha. xoolo gaaraya ilaa 20 milyan kor u dhaaf ayaa waxa lagu sameeyay daaweyn iyo talaal intaba. والقبض إيه والترني قبضاً وزارة حنانة حولها إدرت إيه داقة تلالك إرك حوجي نفقين إيه ما أرجنا شلنتها تمه كراس والولب ما أرجنا بيو عبد تانك إنه تانك أنفر إن شاء الله. وارجع ساق ولا إيه تلالي وأنا كفر حسنها. حولها عافي ما ذيك هلا يعني. حضر كل ما يهدي للتلال معنا. جود هانجي الصومالي. الحمد لله رب العالمين شغلاس وحي كسر دماتي شيء قروح بدن. waxaan rabaa inaan u macdaliyo cid walba oo arintaas nagala shaqeysay oo ugu horeeyo bangiga adduunka mashruuca gaar ahaan FCRP inaan u macdaliyo arintaas daaweynta waxay ku soo dhamaatay guul waxayna wax badan ka bedeshay dhaqaalihii dalka inuu kor u soo kaco wax soo saarkii iyo dhoofka xoolaha inta maalgelinta iyo caymiska si loo hubiyo badbaadada hantida xoolo dhaqatada barnaamijka caymiska xoolaha ayaa noqday tiir muhiim ah saddexdii sano ee la soo dhaafay. dalka labaad aan ku xijinayo oo noqdo waxaad ogtihiin dalka Soomaaliya markii maanta laga hadlaayo in badan adduunyada dhanba Soomaaliya kaliya kuma koobna in isbeddelka cimilada iyo waxyaabo badan oo isbeddelay in ay ka dhasheen abaar soo laabta daadad yimaada roobab wixii ay oo in badan aanan hore u jirin ama dadka reer miyiga ahaadaan ama dadka reer caasimadaha joogaba ha ahaadaan ama degmooyinka aanan aqoon jirin waxyaabahaas badan oo soo laabto oo ay ka dhalan karto marxalado badan oo dadku ay ku dib ku soo gaari karo arintaas annaka ka duulayna wasaaradda xanaanada xoolaha waxay sameysay oo ay ka shaqeysay in dadku marka ugu horeyso la siiyo wacyigelin aad u ballaaran wacyigelintaas ayaa waxay ahayd arin aad u muhiim ah wacyigelintii dadka markii la siiyay wixii ka dambeeyay waxaan ka shaqeynay dalku inuu insurance ay galaan xoolaha dad xoolo dhaqata in ka badan 120,000 oo qofood oo Soomaaliya dhan ku noolaa waxa la geliyay in insurance ay galaan qolada caymiska oo wacdi gelisay bay ugu dhiirigelisay waa qaabil anaguna dadkana waa wacdi gelin qof walba dantiisiiba hela waxa igu dhiirigeliyay dadka caymiska waday oo xogna siiyay oo dadka qaarkiisa ay moodeen waxaan jirin laakiin ay cadaatay oo xagga dawladda ay ka soo baxday dhoofka iyo dhaqaalaha dhoofka xoolaha nool iyo hilibka ayaa noqday lafdhabarta dhaqaalaha dalka marxaladda saddexaad oo aad iyo aad muhiim u ah dalkan oo dhoofka xoolaha saddexdii sano la soo dhaafay alxamdulillah rabbil caalamiin 20 milyan xoolo ku dhow ayaa dalka ka dhoofay oo ka dhoofay dekedaha dalka oo u dhoofay dalka banaankiisa xoolahaas dhoofay waxa dib ugu soo noqday dalka lacag gaaraysa 2.6 bilyan oo dollar oo dalka dib ugu soo noqotay oo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadkii shararka la lahaa ay dib ugu soo celiyeen dalkan waxayna wax badan ka bedeshay dhaqaalaha dalka iyo horumarka ganacsatada dalkan marka ka shaqeynayso ayada waxay ahayd waa arin aad iyo aad u muhiimsan kaabayaasha iyo deegaanka markii xukuumadda danqana ay dhalatay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu nagala dardaarmay dadka Soomaaliyeed waxaad ogtiin markii hore waxay ahaayeen dad xoolo raacta oo inta badan xoolaha ku dhibtoodo abaarta inta ka dhacdo degmihibel abaara ka dhacday degmihibel wareer aad wareeg badan u socdo taasna la ka duulayna waxaan sameynay in aan qaybinay abuur badan oo dadku ay abuuranayaan cagafyo iyo waxyaabo badan oo dib
u soo kaabi karo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed si ay xoolahooda haddii ay wax dhacaan ama abaar ay dhacdo ay u helaan keed waxaan dhisnay bakhaarro waaweyn oo markii cooskaas ay abuurtaan ay ku keedsadaan waxaan kala shaqeynay tababaro badan in la siiyo dadka beeraha foodarka soo saara ama cooska soo saara tababaro badan in la siiyo waxaa kale oo hadda insha Allah maalmaha soo socda ama waqtiyada soo socda ayagana soo gabagaboobi doona isteedida dhan beero badan oo foodarka lagu beerayo oo hadda maalgelin aan ku wadno oo isteedida dhan ayadana ku saabsan oo dadku la siinayo cagafyadii abuurkii tababaradii biyihii wax dhan la siinayo si ay ugu caawiyaan bulshada markaas deegaanka degan ayagana ay ugu saacidaan cooska iyo wixii soo baxay shaqadaas ayadana meel fiican ayay maraysaa insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii in waqti dhow ay soo gabagabowdo shuruucda iyo siyaasadaha dhinaca sharci samaynta wasaaraddu waxay hirgelisay siyaasado iyo sharciyo cusub oo nidaaminaya caafimaadka xoolaha ilaalinta hilibka caanaha iyo badqabka cuntada siyaasadaha ay wasaaraddu dhaqangelisay ama ay dhamaystirtay waxaa ka mid ah siyaasadda badqabka cuntada oo loo yaqaan food safety policy intaa kadib waxaa kaloo jirta siyaasadda xakamaynta daawooyinka oo runtii ay muhiim tahay si loo helo xoolo caafimaad qaba siyaasadda qaran ee dheeraynta dalka oo la yiraahdo Somali National Forestry Policy dhinaca kale inta waxaa jira shuruuc garab socotay ama ka horeysay siyaasadaha marka la sameeyay wasaaraddu sameeysay waxa ay wasaaraddu u baahatay sharci xakameeya daawooyinka oo la yiraahdo Drug Control Legislation Act waxaa kaloo jira laba sharci oo dhamaatay oo runtii habraacyada loogu talagalay bilow ilaa dhamaad ka soo gudbay oo kala ah sharciga ilaalinta iyo badqabka hilibka iyo sharciga badqabka caanaha wasaaraddu waxa ay ku howlaneyd sanadihii ugu dambeeyay iyada oo fulinaysa ama raacaysa hindisihii madaxweynaha ee ahaa Soomaali cagaaran ayaa wasaaraddu waxa ay ku guuleysatay bilooyinkii ugu dambeeyay inay dalka ku beerto in ka badan 100,000 oo geed oo intooda badan lagu beeray gobolka Banaadir qaarna la gaarsiiyay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya sharaf weyn ay ii tahay maanta aniga oo jooga xarunta kaydka dhirta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa in aan maartay gudoomo tiro oo geed ah oo ay wasaaradda dhirta iyo daaqa ugu tala gashay dawladda hoose xamar maamulka gobolka Banaadir waxaa sidoo kale inta wasaaraddu ay ku guuleysatay inay aasaasta ama dhisto goobo biyoodyo isugu jira ceelal warabiyoodyo iyo balliyo wasaaraddu waxay la timid in ay soo kordhisa ama samaysa sistamyo casri ah sistamyadaas iyo adeegyadaas casriga ah waxaa ka mid ah nidaamka xogta suuqyada xoolaha oo ay wasaaraddu dhamaystirtay habraacyadiisii iyo samayntiisii sidoo kale wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxa ay samaysay sistamka ama nidaamka la socodka cudurrada xoolaha si loo diiwaangeliyo ama looga warqabo cudurrada soo noqda iyo kuwa halka mar ku dhaca xoolaha Soomaaliyeed waxaa sidoo kale inta wasaaraddu ay gacanta ku haysaa meel gabagaba ah maraya system la yiraahdo systemka raadraaca iyo aqoonsiga xoolaha oo runtii system casri ah wax badan ku soo kordhin doona xoolaha iyo xoolo dhaqatada Soomaaliyeed wax ku soo kordhin doona iskaashiga caalamiga ah wasaaraddu waxay gaartay heshiisyo muhiim ah oo lala galay dalal iyo hay'ado caalami ah oo ay ka mid yihiin Cumaan iyo Sacuudi Carabiya iskaashiyadan ayaana sahlay in Soomaaliya ay hesho suuqyo cusub isla markaana kor u qaado tayada wax soo saarka si loo waafajiyo heerarka caalamiga ah marxadda kale oo aad muhiim u ahayd haddaan u soo laabto waa kaabayaasha dhaqaalaha wasaaradda inta aan joogno waxa Ilaahay noo suurtageliyay meesha maanta aan fadhina nafteeda maalinta iimaanaynay sidaan quruxda badan ma ahayn in la dhiso waxaa kaloo la dhisay dekada xarun weyn oo wasaaraddu ay leedahay shaybaarkii xoolaha lagu baari lahaa iyo xaruntii shahaada bixinta waxa laga dhisay shaybaarka si guud dalka oo dhan ayaa wax laga dhisay xarumo badan oo xanaanada xoolaha arrimaha ay ku shaqeyso waxa kaloo la dhisay oo horey loo dhisay suuqyo badan oo xoolaha ay leeyihiin oo laga dhisay Beledweyne Dhuusmareeb gobolladoo dhan haddana waxaa socda insha Allah tacaala maalmaha soo socda in horeyna aan u dhagax dhignay oo shaqadooda ay bilaabato suuqa xoolaha weyn ee Baydhabo suuqa xoolaha Waajid suuqa xoolaha Diinsoor
meelo badan oo gobolada Dhuusmareeb ilaahay idinkii beledweyne meelo badan in ayada nafteeda Kismaayo oo ayada nafteeda loo dhisaayo shay baar weyn waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed si guud waxa socdo horumar oo dhinac walba taabanayo haday noqoto la dagaalanka cadawga argagixisada haday noqoto dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha haday noqoto horumarka xoolaha ay sameynayaan ee dhoofka dhinac walba waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed insha Allah taala waqti qurux badan oo kan ka sii qurxoon aan u rajaynaynaa ilaahay idinkii inaan ku hogaamino aad iyo aad aan u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warbixinta 3 sano ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxay muujinaysaa horumarka la taaban karo ee laga gaaray caafimaadka xoolaha dhaqaalaha iyo hirgelinta kaabayaal casri ah waxaana ka go'an dhammaan hoggaanka iyo shaqaalaha wasaaradda in ay dadaalkan guuleystay la sii laba jibaaro si loo xaqiijiyo horumar waara oo dalka iyo bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan